Bismillahirrahmanirrahim. Kusoo dhawaada Somali News Channel. Haddii aad ku cusub tahay subscribe noo saar. Casharada u dambeeyay iyo weliba muuqaalada u dambeeyay waxaynu ku soo hadalnay ama aynu uga soo qaadanay khudaarta iyo weliba miraha noocyadooda kala duwan oo mid weliba aynu faahfaahinay faa'iidadiisa iyo weliba waxtarkiisa. Maanta waxaynu ka hadli doonaa faa'iidada geedka liin balbeelmada mise liimo balbeelmo. liima balbeelmadu waa geed aad iyo aad u muhiim badan. maanta waxaynu rabnaa in si wanaagsan aad u dhageysataan, la socotaan, aad weliba ka faa'iidaysataan cilmiga iyo weliba sida aynu u faahfaahin doono insha allahu tacaala. balbeelmadu waa cunto, waana daawo. waxaa laga isticmaalaa dalkeena 16 nooc oo balbeelmo ah, waxaana loo badan yahay isticmaalkeeda sida mandariinada, booreyda iyo gaduud carwo. waxaan ku baraarugsanahay in loo isticmaalo dhiig la'aanta, caruurtana lafaha way u adkaysaa, curiyaasha ku jira waxa ay ka hortagaan cudurro badan. balbeelmada oo idil curiyaasha ku jiro waxa ay ku dhan yihiin 90% waa biyo, 9% waa borotiin, 2% waa dux, 8% waa iodine, 10% waa silfar, 22% waa fosfor, 3% waa sodium, 87% waa potassium, 43% waa calcium, 4% waa copper, 1% waa silfar. baaris la sameeyay waxaa lagu ogaaday in ay u roon tahay balbeelmada cudurrada kala ah xabad xanuunka, qufaca, xoojinta beerka, firfircooni siinta dhiigga wadnaha, mindhicirada. waxaa dheeraad ah xoojinta garaadka. dhakhaatiirtu waxa ay ku goobabiyaan ama kula taliyaan inaan laga tegin qaadashadeeda. waxaa kaloo loo qaataa dhiig karka sareeyo iyo gaastarikada. cabitaankeeda cuntada kadib ama cabitaankeeda cuntada kadib ee aad isticmaasho wuxuu caawiyaa dheefshiid xumida, cirid guranka way ka hortagtaa. waxaa kaloo loo qaataa xiiq dheerta, neefta oo ku xiranta qofka, cudurrada dheefshiidka, dhabar furanka, ilka xanuunka, mataga yimaado xilliga urka. sidoo kale waxaa loo qaataa bog hurka iyo beer ololka, shubanka daran haddii loo qaato miiris ama karis kadib wuu istaagayaa. sidoo kale haddii caleentiisa laga isticmaalo 10% mise 20% laguna daro 1 litir oo biyo ah, waxaa lagu daaweeyaa madax xanuunka, qufaca, hingada. waxaa kaloo baaristu lagu sheegay qolofteeda in ay leedahay faa'iidooyin fara badan sida rheumatism-ka. waa adigoo qaata qolofteeda oo aad ku reebto in yar hilibka kadibna diirimaad ku samaysid kuna dhiijisid meesha aad xanuunka ka dareemayso 20 ilaa 15 daqiiqo. waxaad arkaysaa inuu ka istaagay xanuunka. Dr. Jarvis kitaabkiisa lagu magacaabo isku dhaweynta dhirta waxa uu yiri haddii la isku daro balbeelmo iyo jeex liin dhanaan ah, laguna daro jaalaha ukunta, laguna daro qaado malab ah, lana isticmaalo subax waliba cuntada ka hor, waxa ay ka hortagaysaa cudurro fara badan oo aan halkan lagu soo koobi karin. wassalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatu.